Asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada caawa iyo Champions League Chelsea dhulka ayay dhigtay Barcelona saaxiibayaal warar kale xiiso leh ayaa idinku haya saaxiibayaal subscribe like iyo share in wax maamad aad iyo aad u mahadsantihiin saaxiibayaal Barcelona markii la fiiriyo weligeed waa laga adkaay weligeed ma aragtaa Barcelona Chelsea looma tagi jirin macnaa Chelsea uma tagi jirin haddii u tagtana waxay xaqeeda ah ay ka soo qaadan jirtay Barcelona balse caawa tan lagu dhigay ayaa la yaabay Lamine Yamal ay ku faantamayeen Barcelona ayaaba jeebka laga gashtay xitaa asagoo loo hiilin lahaa xitaa waxaa lagu qaatay red card ayaa la siiyay kan tasale gardaran yahay war cunugeen waaye war cunugeen caana ma daasho waaye intee waaye warxalde iska aamusalde roqo yellow kaada qaado markii dambe wuxuu isku walwaalay Araujo ninka la dhahayo oo daafaca ah ee reer Barcelona caawa waxa idin leenahay suura ee idin leenahay mar kale wuxuu isku day in uu micna uu jilaafeeyo oo dhulka uu kor u ka keeno ay isku day Cucurella ninkaas waa la soo dhaariyay waxa la xitaa hada Euros la soo qaadeen oo isku team ahayd national teamkaas la ahaydeen hal qaran ka soo jeedaan waxa la dhahay dadkan ma u jeedaan meel naga saarale baqbaqdooda way badatay war meel naga saara ayaa la dhahay marka Cucurella wuxuu siiyay yellow card kale ayaa loogu daray magaciisa Araujo ninka la dhahay kadibna waxa la sameeyay waxa la siiyay Carcasan ayaa la siiyay si toos ayaa loogu bixiyay asoo waji gabax dhulka fiirinaya ayaa waxa la Stamford Bridge albaabkeeda halkaas ayuu ku yaala ayaa leh Chelsea caawa waxay ka dhalin kartay Barcelona ilaa 7 gool way ka dhalin kartay ilaa 8 gool laakiin waa loo naxariistay waxaa la soo xasuusiyay 2010kii Barcelonadii ay aheeday oo baasaskii shaxdii ay ku ciyaari jireen ee caawa la soo xasuusiyay baasas dhac Cucurella C ka soo celi James C ka soo celi Stavio C war intaas dhan waxay leeyihiin taageerayaashii Barcelona waxaana soo xasuusiseen 2010kii markii Messi uu saddexdii macnaha labadii gool uu ku dhaliyay Stamford Bridge Camp Nou ayana soo xasuusiseen marka waxaa lagu garaacay 2 gool 3 gool ayaa lagu garaacay hal gool ayaga iska dhaliyeen kunde ninka intuu uu macnaha oo balontu raadina asaba tun dheeradii la iska bixiyay marka waxay aheeday haween oo Barcelona albaabada iyo xira aan iska ooye mucaaradkana Real Madridna ay daaqada ka fiirsanayeen marka Barcelona caawa waxay aheeday koox ku liidata dhankan iyo Chelsea ayay aheeday xitaa dhan walba loogu fiicnaa xitaa offside ayay galeen mar xitaa waxay isku day in offside macnaha offside waaye dadkan offside aan ku dilin amal isku day laakiin ayaga laga dhex bixiyo markii laga dhex bixino goal ayaa la fiiriyay VAR meesha ka shaqeysa waxa weeyaan dulmi ma ogolaan dadkan marka waxa la dhahay goal stands ayaa la dhahay marka sidoo kale halkan Garnacho iyo waxa isku arkeen Rashford oo muddo hada kala maqan muddo yar kooban kala maqan ayaa isku arkeen meesha oo xitaa Garnacho waxaa la ciyaarsiiyay ilaa halfkambiga koobaad iyo xoogo ayaa la ciyaarsiiyay kadibna Rashfordna halfkambiga labaad ayaa lagu soo tuuray marka labadoodba caadi ma ahaynba waxaa siba Garnacho uu nafta u keen waxa weeye daafacadeed waxa uu keenay aad iyo aad ayuu uga careysiiyay xitaa mar xitaa uu dhulka ku jiiday daafac ka mid ah reer Barcelona marka caawa waxay tahay waa caawa Champions League la iska liigliyeynayo oo haween damban xitaa ku xigto weeyaan marka Barcelona waxay ciyaari doontaa haddii saas ku soo socoto 7 dhibcood hadii ay leedahay 5 kulan la ciyaaray oo macnaha waxay ciyaari doontaa playoff haddii sidan ay ku sii socoto Barcelona halka Chelsea iidan ay ka badbaadi doonto macnaha playoffka oo si toos ah u soo bixi doonto Champions League dhanka iyo knockout-ka marka waxa la bedelay Lamine Yamal markii la bedelay xanaaq gafuur maxaa la bedelaa
anaa jikatoore ka ah war meesha anaa ka wacdareyna anaa ka meesiyo ah number 10 wata intee waay haddaa xun tahay waa lagu bedelaa haddaad fiican tahay waa cayaareysaa oryo meeshan waxaa la dhahaa waxa weeyaan Champions League hortaada ayaa la soo ciyaaray lagu soo daalay marka caawa waxa weeyaan madaxaana fuuran waay caawa reer Man City caawa reer Itixaad iyo reer Al Nassr waxa weeyaan laba gool oo qajajac ah ayaa loogu badiyay Bayer Leverkusen iyadana caadi ma bahan Haaland ayuu waxa dhigtay bench ayuu dhigtay Guardiola inuu caadi ma wuxuu maleynay koox yariis waa in kooxdan waa markii meel lagu wado waxa weeyaan dambiiladaada ma aragtaa waxba lagu soo ridaa marka caaba Pep Guardiola isla markaba wuxuu sameeyay bedel degdeg ah ayuu sameeyay laba ciyaaryahan oo hal mar isla bedelay maysan dhicin le caaba oo kale Pep Guardiola wuxuu sameeyay sidoo kalena Juventus iyadana mar oo looga hormaray body glimp oo ugu hormartay gool ayaa isku naxday laakiin aakhir saac markay ahayd ay badisay Juventus halkaas 3-2 ay ku dhamaatay Juventus walow Juventus ay iyadana naftirkeeda qilqil ay ku jirto dhankaas iyo cadaadiska play-off-ka Champions League sidoo kalena halkaanitana macalinka Jose Mourinho ayaa asagana hogaaminaya Benfica xilli uu guushiisa ugu horeysa hadda ay macnaa uu helay xilli Napoli Juventus iyo Real Madridna ay wada sugayaan Jose Mourinho ninkii aan caadi ahayn waxa weeyaan oo koob kasta oo ka tirsan qaaradda Yurub uu soo qaaday caawa marka asagoo hogaaminaya Benfica ayuu guushiisa koowaad ay gaartay dhankaas iyo Champions League marka waxa weeyaan waa haween oo legendayada la isku arkayo sidoo kalena Cristiano Ronaldo ayaa hal ciyaar kaliya laga ganaaxi doonaa FIFA ayaa soo saartay hal ciyaar oo macna World Cup ku ciyaari doono ayaa laga ganaaxi doonaa waxaa ogeedeen Portugal iyo Ireland markay ciyaarayeen oo 2-0 loogu badiyay kooxda Cristiano Ronaldo Portugal ayaa wuxuu jirka macnaha uu xusul ku dhuftay mid ka mid ah reer Ireland oo halkaas asagana kaarka casaanka ahaa banaanka loogu saaray oo macnaha muran badan dhalisay oo xitaa oo lagu maasana wuxuu dhahay iska ooy camalna asagana markii kaarka casaanka ah loo taagana wuxuu dhahay waxaa macnaha lagu macsilay camalna adigina waad ooyeysaa iskaaga tag garoonka marka FIFA ayaa soo saartay kaliya hal ciyaar kaliya ayaa laga ganaaxi doonaa saaxiib yaal waxaan idin codsanayaa subscribe iyo like iyo share meel kastana aad joogtaan waxaan idin leenahay habeen wacan wanaagsan